Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaal kusoo dhawaada cashirkeenii afraad ee ku saabsanaa barashada wadida baabuurka ama barashada astaamaha jidadka. Cashirkan waxaynu kaga hadli doonaa ama clipkan waxaan kaga hadli doonaa Vorfahrstraße ama Priority Road waxa loo yaqaano. Calaamadan waxaa loo yaqaanaa Vorfahrstraße ama Priority Road, waxayna macnaheedu tahay inta aad calaamadan ka arkayso ama aad ku socoto dariiqeega, adiga ayaa mudnaanta leh. Baabuurta kasoo galaya dhinacyada ama hareeraha wadada ee raba inay kusoo biiraan wadada aad ku jirto, adiga ayaa uga xaq leh. Waxayna waajib ah inay ka istaagaan ama ay sugaan ilaa inta ay fursad ka helayaan ay wadada kusoo biiraan. Calaamadan waa tii aynu soo aragnay Vorfahrstraße oo lagu ladhay calaamad kale oo muujinaysa in dariiqani uu midig u baydhayo ama uu bidix u baydhayo, taasi oo ay ku xidhan tahay kolba jihada aad ka socoto. Waxaana lagaa rabaa in aad shidato bilinkarka ama birbiriyaha nalka loo yaqaano ee muujiya inaad midig u baydhayso ama bidix u baydhayso. Labada xariiq ee idiin muuqdaana waxay muujinaysaa in uu dariiqan baydhaya ama dhinacan u weecanaya midig ama bidix, in laba dariiq oo kale ku furan yihiin oo ay macquul tahay inay baabuur ka soo gasho ama ay ka baxdo. Calaamadani waa mid la mid ah tii aynu soo sheegnay hadda, waxayna muujinaysaa dariiq Vorfahrstraße ah oo u baydhaya bidix ama midig hadba meesha aad ka imanayso ama aad ka socoto. Laba dariiqna ay ku furan yihiin. Sidoo kalena waxaa lagaa rabaa inaad shidato bilinkarka ama nalka birbiriyaha loo yaqaano. Calaamadani waa calaamad muujinaysa inaad geli rabto ama aad ku dhowdahay Vorfahrstraße, dariiqii aynu hadda soo sheegnay. Taasi oo ay macnaheedu tahay baabuurta dariiqaasi ku jirta ayaa kaaga xaq mudan, markaa waa inaad iska jirto iskana ilaaliso baabuurta hore dariiqa u maraysa. Labadan astaamood waxay muujinayaan dariiq Vorfahrstraße ah oo uu midkoodu baydhayo bidix, midkoodna uu midig u baydhayo. Labada astaamood waxaa kaaga muuqda in uu dariiq ku furan yahay, waxaana kuu muujinaya xariiqda madow ee korka ama dhinaca kaga taala. Sida caadiga ahna waxaa lagaa rabaa inaad bilinkarka ama birbiraha shidato marka aad rabto inaad bidix u baydho ama midig u baydho. Labada dariiq ee ku furan gaadiidka ka imanaya, adiga ayaa muhiimada kale ama uga xaq mudan in aad marto, iyaguna waa inay ku sugaan ilaa ay ka helayaan fursad. Calaamadan waa calaamad muujinaysa isgoyska ugu horeeya ee kugu soo aadan in aad adigu uga xaq badan tahay baabuurta kale oo aan loo baahnayn inaad ka istaagto. Baabuurka ka imanaya dhanka midigta, isaga ayay waajib ku tahay inuu kaa istaago oo uu kuu fasaxo inaad wadada marto. Kani waa sawir muujinaya dariiq Vorfahrstraße ah, waana su-aal ka mid ah su-aalaha imtixaanka lagu qaado oo laga yaabo inay kuugu timaado. Ugu horeyn waxaad fasaxaysaa mootada ninka wata inuu wadada ka gudbo ama uu ka baydho. Adiguna waxaad xaq ka leedahay gaadhiga huruudda ah ama yellowga ah. Number 1 waxaa maraya mootada, number 2 waxaa maraya gaadhigan aad hadda ku jirto, number 3 na waa gaadhigaas kale ee halkaa taagan. Sawirkan waa mid kale oo ka mid ah su-aalaha theory-ga lagu qaado oo laga yaabo inuu imtixaanka kuugu imaado. Su-aashuna waxay tahay, ayaa wadadan xaq u leh inuu number 1 maro, amaba se ay ugu kala muhiimsan yihiin sida ay jidka u kala marayaan. Jawaabta saxdii waxay tahay number 1 waxaa maraya oo loo fasaxaya wadada transporterka ama baska halkaa ka muuqda ee buluuga ah. Number 2 qofka gaadhigan wata ama adiga ayaa gudbaya
gaadhiga cas ee halkaa kasoo muuqdaana waa ka ugu dambeeya ee meesha ka gudba ayuu noqonayaa, sababtoo ah Forfahrstrasse ayuu isagu soo gelayaa, adiguna Forfahrstrasse ayaad ku jirtaa, gaadhiga kale ee baskuna Forfahrstrasse ayuu ku jiraa. su-aashana waxa ay tahay, ayaa xaq u leh inuu dariiqan ugu horeyn maro, baska, mootada ama adiga gaadhiga wata? Number 1 waxaa maraya mootada. Number 2 waxaa maraya qofka gaadhigan wada ama adiga. Number 3 oo ugu dambeyn ah waxaa maraya baska. Sababtoo ah sida aynu kor kusoo baranay, calaamadan meesha kuugu taala waxay ka dhigan tahay ama macnaheedu tahay in isgoyska ugu horeeya aad adigu uga xaq mudan tahay. Haddii aad baydhasana, baabuurka toos u gudbaya ayaa kaa leh. saas darteed mootada ayaa kaa horeynaysa, adiga ayaa ku xigaya. Calaamadan meesha kuugu taala darteed ayaad adiguna kaa uga xaq mudan tahay. dhanka kale markaad ka eegtana, baska waxaa hor taala calaamad ah iska jir, wadada aad gelayso waa lagaa leeyahay. calaamadani waa tii aynu hore usoo baranay hadda, waxayna tilmaamaysaa inaad gelayso dariiq Forfahrstrasse ah oo lagaa leeyahay. marka labada dariiq ee ku furanna waa dariiqa waa gaadhigaasi uu ka imanayo buluuga ah iyo dariiqan adigu aad ka gelayso. dariiqa bidix ama midig u baydhaya ee aynu hore usoo tilmaamnayna waa kaas mootadu marayso, ee baska akhtarka ah inuu hore ugu sii jiro. Number 1 waxaa maraysa mootada ayaa xaq u leh maadaama ay ku jirto Forfahrstrasse. labadan gaadhi ee midna adigu aad wadato midna xagga kale uu kasoo gelayo ayaa iyaguna ku xiga, waxaana kaale gaadhigaas halkaas. laba siyaabood buu kaaga leeyahay. marka la eego dhinac ahaan wadadii uu kaaga dhow yahay, adiguna cabaar bay ku jirtaa. marka labaadna waxaa la qiimeynayaa rush for links. labadiinaba calaamad isku mid ah ayaa idiin taala, waxay noqonaysaa ka midigta ayaa kale ka bidixda. sawirkan wuxuu muujinayaa inaad ku jirto dariiq Forfahrstrasse ah ama dariiq aad adigu xaq ugu leedahay inaad ku socoto, baabuurta soo gelaysaana ay ku sugayaan. sidaas darteed gaadhiga buluuga ah ee halkaa kasoo baxaya adiga ayaa kale, gaadhigan garawga ah ee xaggan kasoo socdana adiga ayaa kale, sababtoo ah adigu waxaad u soconaysaa toos, kana inuu baydho ayuu rabaa, kana inuu wadada soo galo ayuu rabaa. marka labadoodaba adigaa kale, labadooduna waqti isku mid ah ayay gudbi karaan haddii uu dariiqu furan yahay, waayo midna wadada dhinaca midigta ayuu ka gelayaa, midna dhinaca bidixda ayuu ka gelayaa. waxaa jira su-aalaha theory-ga su-aalo badan oo isku soo noqnoqda ama isku mid ah oo la kala bedelo uun keliya baabuurta maraysa. su-aashan hore ayaynu usoo aragnay. halkaas gaadhiga greenka ah ama akhtarka u taagan yahay gaadhi cas ayaa inoo taagnaa. xaggan uu gaadhiga kale ee yelowga ama huruudda ahayna kasoo galayna waxaa inoo taagnaa bas, halkana adiga ayaa taagnaa. sidiisi la mid ah, gaadhiga halkaas soo taagan ee huruudda ah ayaa xaq u leh inuu maro wadada, adiga ayaa ku xiga maadaama aad Forfahrstrasse ku jirto, ka greenka ah ayaa ugu dambeynaya.